السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل والبه وديك دعوان إنسان يسول بدي مقلسان به مقال كان مانتها حين مركله بلدب أقول عملنا حالي جدا بيجي مقالة كسماي قبل كجدا كسعودة سجود حالة ده مملكة جبلان أورنتي سعادة وكرسم إساه أيان حقوقي جدا بيجي حالة ده خاصة يكون قربة لأن مقال كان كنت مستعد دونا سود هذا ميل بوجوكتان يسي والبه ومركها هذه مقلسان به مركه وهو رئيسه subaxnimadii hore ee saaka markay dhanka Soomaaliya ka ahayd ayuu isku caanashubay sida caadada u ahayd Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe isku caanashubkan saaka dhacay ayaa waxa taageeray siyaasiyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayre oo xilligii ra'iisul wasaaraha ahaana hoos kala socday laakiin maanta si public ah markii ugu horeysay banaanka soo istaagay oo taageeray arrinta u dhaxaysa Xasan يمحل يرادا أحمد مدوبي ودنا شخصي أوي ما هنقرن الله شقينا يو ما هندورشوا نبقى سجى الدنيا سواء على شغلها يسدي ومش كوسي شغلها بوكا شقينا يا لكن ما ضم بالوش هي إن أي شرع اللي عياري ديمقراطية دورشوا المنفذ وحيودن وهوها يشاركوا أم حبكة تشرين حسن الشيخ محمود مدحونها الدولة دفرك الصومالية أي قاضي talaabooyin runtii u muuqda in ay Kismaayo ka dhici doonto dagaal markaasi faraha la isaga gubtay istaraatiijiyada ugu horeysay Xasan uu ku wajahay arrinta Jubbaland iyo Kismaayo waxay ahayd inuu halka geeyo siyaasiyiin markaa xamar laga soo diray isla markaasna ciidamo iyo connection kan loo sameeyay oo la isku dayay in gudaha magaalada Kismaayo dagaal laga rido arrinta markii ay fashilmatay oo ay shaqeyn weyday ayuu Xasan istaraatiijiyada kale markaa la yimaada subaxnimadii saaka sidoo kale markii Axmed Madoobe isku caanashubay ayaa deegaanka Raas Kamboni iyo deegaan kaleeto oo Buurgaaba la yiraahdo wuxuu labaduba Xasan ka dajiyay ciidamo xoog leh ilaa 4 diyaarad ilaa 5 diyaaradood labaduba waa la sheegaya in halka laga dajiyay labadaas goobood ciidanka la geeyay waxa hore u sii joogay ciidan Jubbaland Axmed Madoobe ka carqaata xogaha lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in si hoose looga adeegtay Axmed Madoobe ciidanka iyo hubkoodina marka la wareegay kuwa kalena marka lagu soo daray ciidankii Axmed Madoobe ee meesha sii joogay oo baahinta la hadlay ayaa sheegay in la qasbin oo wax kale aysan ahayn laakiin ciidan qaran ay ahaayeen isla markaana madax kale oo ciidan qaran ay halka ay timaaday hadii Ilaahay baa iska leh maanta oo ay tahay 25kii bishii 11aad 2024 waxaan garoonka Raas Kamboni ee degmada Badhaadh ku soo dhaweynay ciidamada dawladda Soomaaliya oo hogaaminayo taliyihii guud ee ciidamada Gorgor aad baa mahaddas Ilaahay baa iska leh waayo waxaan naga baxay ciidamada admis yaa baxeen meel badan bay ka baxeen wayna soo xoojiyeen إن شاء الله وأنا سود ويني أنا كوه الله عندما جبلان تليا سراكيس جبلان سرقال كمية أنا هاي ما هذا سلاحي بأسكله وأنا سود ويني إن شاء الله أدنى سود ويني رجع كادكتي كافرفري عيدن كي هالكات شوقي ود هاي أحمد مدوب إسكوها ليني إن دنك كانوا أوريجان حكش قريبة ليري تليها لقطة نكا خالد ليري هذا ودوان لما جعبي هرنا أنا رسيت دي هرنا كوشة جاي إني كاسو يهين أحمد مدوب دامج حوج لوجيسن كا حضنا وين بقطع مش عارف حكت هاجن تقال عن لوجين وحكى صوب بحدورة إذا كانوا سوق جوري لا برانو إيمانا يا كم بعد كسمايو إيمان يا بلالي أحمد مدوب وكش قينا يا سيد إذا كاس اللوجو هرتجيها ما يسكت عدونا بس حال كلا إيمان دونا وقت كشيء دونا الحمد لله هذا اللوجين مرك دول دي كان يا أحمد مدوب مش كويسي محمد دولي مركا راعي دونان بس حسن بي راعي دونان والسؤال كلا وعاوك اسماعيل تعالى ساحة السياسة دانا سوين مركا لو رقرقيو هادبو وحي كو حيران تاها ميشا سي لوغو كالات كادا هادبا عيدا اي كيان كو راعان اي كو حيران تاها تاوا هالكا نانكا كلا مركي اد فيريسو قدو ايضونا فرين كلا ايا لغا فري احمد مدون محمد دا مركا ان شاقا بدن لو دري هومبار بدن قدوبية قولك قدو عبد الله شبر ايا ساقونا ساكا markii ugu horeysay hadlay oo naqdiyay in Axmed Madoobe isku caanashubkiisu uu wax jira ahayn loona dulqaadan kara arrinta nooca maanta waxaan rabaa
shirkaygu jira iduu ku saabsan yahay dhowr kelimood inaan ka yiraahdo madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta dib isugu doortay magaalada Kismaayo. waxaa kaloo rabaa inaan dhowr kelmadood oo kale yiraahdo shacabka reer Jubbaland, gaar ahaan waxaan rabaa shacabka guddoomiyaha u ahaa gobolka Gedo inaan ayagana kelimaad yiraahdo. madaxa ugu horeeya waxaan rabaa inaan sheego inayna sharci ahayn, annaguna aan soo dhaweynayn haddaan shacabka Jubbaland nahay, khaasatan reer Gedo inayna soo dhaweynayn aqbalayna anoo guddoomiyahoodii ah gobolka barasaabkoodii ah inaanan aqbalayn yeelaynina saxana ayna nala ahayn dib isu doorashada uu dib isu doortay madaxweynihii hore Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Cabdullaahi Shimbir dhowr maalmood ka hor ayaa Garbaharey laga celiyey kadib markii Axmed Madoobe uu u isticmaalay iimaan cadow oo la yiri ma iimaan karo, amnigii baa qalqal la geliyay la yiri. dowladda Soomaaliya ayaa saraakiisha gobolka Gedo jooga khaasatan Garbaharey si hoos oo la hadashay, isla markaasna waxaa la hadlay taliyaha booliiska ee Garbaharey, midka nabad sugidda iyo midka militariga u sarreeya. waxaa lagu amray in madaxda imaanayso Cabdullaahi hogaaminayo oo xildhibaanadu ay ku jiraan in Garbaharey ay soo degaan, cid hor istaagi karta aysan jirin. iimaan cadowna ay u sheegaan in meeshaasi uusan dhibaato ka geysanin laga wareego ciidanka. subaxnimadii saaka ahayd ayay ciidankii iyo iimaan cadow guddoomiyaha degmada ah ay wada hadleen. waxaa la ii sheegay in wejigii hore ee wada hadalkaasu aysan waxba ka soo bixinin oo iimaan uu diiday, laakiin gadaal cadaadisyo ka yimid iyo ciidankii staafka u ahaa iimaan oo laga watay siday xogu sheegayaan kadib in iimaan uu isbedelay xerada ciidanka ee Garbaharey ku taalo. shir ka dhacay in markaa lagu go'aamiyey inuu Cabdullaahi imaan karo, iimaana ka wareegay kadib markuu arkay ciidankaanu in dowladdu uu ka amar qaato awoodu ku joojin aysan lahayn. waxay reer Garbaharey iyo xogii ugu dambeeyay sheegayaan in garoonka Garbaharey ay caawa ku sugan yihiin ciidan ilaa 200 ah oo loogu talagalay inay bari Cabdullaahi Shimbir ku soo dhaweeyaan degmada Garbaharey. waxaana la socda siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo dad kale oo xamar laga soo dirayo oo dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah. waxay ugu intaa ku darayaan in Cabdullaahi Shimbir markuu bari yimaado degmada Garbaharey uu isku shaandhayn ku samayn doono wixii bari ka dambeeya guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo. kii Axmed oo la socda waa la tuurayaa baa la yiri, kii markaa Xasan iyo raggan Cabdullaahi u galayna wuu joogayaa baa la leeyahay. kolle wixii ka soo baxa ayaduna goonideeda ayaynu u fiirin doonaa. waxaa kale oo halkan ka imaanaya ayaduna oo xogo kala ah oo aan helayo weliba xogo diblomaasiyadeed ah in dowladda Itoobiya Xasan isu soo dhawaanayaan, in Xasan uu ballan qaaday Itoobiya inay ku biiri doonaan qorshaha cusub ee midowga Afrika ee mandate cusub ee la siin doono sanadka hadda fooda nagu soo hayo January 1. marka Itoobiya waxay u baahan tahay mandate-kaas in la siiyo oo dhaqaalaha iska sii qaataan. marka qira Jabankii ah Itoobiya la dagaalamayna, Itoobiya diidanaha hadda isbedel baa ku yimid baa la leeyahay. Xasan marka dalkii waan xoraniya u lahaa wuxuu ka doorbiday Itoobiya Axmed Madoobe igu taga ila shaqeeya idinkuna iska jooga. marar badan baan idin sheegay in Xasan uusan dalna xoreyn karinin, xoreyna loo socon waxa ay dhamanka la soo aruuriyaan ay dana shakhsi u laabanayaan. ilaa hadda marka waxaan wali la ogeyn dagaalkan Axmed iyo Xasan u dhaxeeya kay Itoobiya go'aamada ay qaadan doonaan maxay tahay, yay raaci doonaan dhanka Gedo, yay raaci doonaan dhanka shishe Jubbada hoosena Kenyanku yay raaci doonaan. waxaa la aaminsan yahay hadba dowladahaasi ciddii ay raacaan inay guusha raaci doonto oo sida la aaminsan yahay, laakiin waqtigaa sheegi doona siday xaaladahaasi isugu aadaan. waxaase xaqiiqo ah in Kismaayo iyo Gedaba ay laba aag oo dagaal oo culus marka Axmed Madoobe looga furay. dhanka Kismaayana uu Axmed Madoobe uu wajahayo xaalada adag kadib markii uu Xasan la yimaaday rag aad u yaqaan Axmed Madoobe, kala furfuri kara ciidankiisa, asaga ku jifa ah, deegaanka yaqaana, xaalada taktiga bedelaya. wixii ka soo bixi doona ayaduna si gooniya ayaynu waqtigeeda u fiirin doonaa una falanqayn doonaa. intaasaan kusoo koobaya inta dib isaga soo laabanayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.